بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كنال كمانداري وحانا هاي بشير شيخ محمد halkan waxaa nooga bilaabmaya barnaamij taxanaha oo ku saabsan psychology-ga ama cilmi nafsiga gaar ahaan qaybtiisa personality test ogow shakhsiyadaada mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay xiriirka ka dhaxeeya habistaagaaga iyo shakhsiyadaada nala sii joog daawade si aad u ogaatid shakhsiyadaada anagoo isticmaalna qeexitaanka habistaagaaga balse intaynaan guda gelin barnaamijka daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe dhe lana sii wadaag muuqaalka asxaabtaada kale ee danaynaysa barnaamijyada noocan oo kaleeta ah haddaba aan gudagalnay barnaamijka habistaaga koowaad waxaa loo yaqaanaa lux parallel oo ah qofku in markuu taagan yahay inuu isku soo dhoweeyo labadiisa lugood badanaa waxaa lagu qeexaa shakhsiyadda habistaaga leh qof raaliye aha ixtiraamo awoodaha ma jeclid saraynta bulshada dhexdeeda aha waxaa tahay qof waafaqid badanaa matid qof ka qayb qaata doodaha marka laga doodayo mawduuca habistaaga labaad waxaa loo yaqaanaa lux slightly apart oo ah labada lugood inaad kala durkisid dhinacna isu leexisid shakhsiyadda habistaaga leh waxaa lagu qeexaa qof jecel awoodda iyo amar bixinta kamana baqatid inaad ka dhex muuqatid meesha aad joogtid waana habistaag raggu u badan yihiin habistaaga saddexaad waxaa loo yaqaanaa one leg forward oo ah marka aad taagan tahay inaad lug hore u yarbixiso habistaagan shakhsiyadda leh waxaa lagu qeexaa qof isku qanacsan raaxada naftiisana ay muhiim u tahay waxaadna la nooshahay joogtadaada kamana baqatid inaad muujisid dareenkaaga waxaad rabtana si toosa ayaad u gudbisaa habistaaga afraad oo aan ku soo gebagabayno barnaamijkeenna waxaa weeye lux crossed oo ah inaad laba lugood isdhaafisid marka aad taagan tahay sida kaaga muuqata sawirka badanaa shakhsiyaddan waxaa lagu tilmaamaa qof jecel kalaanshiyaha beddelka la joogista dadka matid qof si fudud u dhex gala qofkuusan aqoonin waxaadna samaysaa habistaagan marka aad la kulantid shakhsiyad cusub ama shakhsi cusub uu kula kulmo adiga haddaba daawade habkeed ayaad u istaagtaa mase iswaafaqeen habistaagaaga iyo shakhsiyadaada barnaamijkeenna maanta intaas ayuu ka egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh